muxaadarooyin kala duwan ka daawo TBN Tawfiiq Broadcasting Network. TBN wuxuu idin soo gudbinayaa culimo kala duwan, casharo kala duwan, muxaadarooyin kala duwan. Ka faa'iidayso meel walbo aad ku sugan tahay. TBN Tawfiiq Broadcasting Network. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaan insha allahu tacaala casharkeenii waxaan ku jirnaa insha allahu tacaala afraad kitaabkeenii ahaa majmuuc الرسائل في إصلاح الفرد والمجتمع ayaan insha allah galaynaa haddii ilaah yiraahdo للشيخ جميل زينو محمد ابن جميل زينو رحمه الله رحمة واسعة كتابك إن شاء الله تعالى waxaan ku jirnay صفaatka ilaahay subxaanaه watacaala ayaan ku jirnay أين الله sheekha wuxuu yihi أين الله ilaahay xagee yahay ilaahay xagee yahay subxaanaه watacaala أين الله الله الذي خلقنا الله الذي خلقنا waa allahna abuuray أوجب علينا wuxuu nagu waajibiyey an nacrifa أين huwa ilaahay xagee yahay inaan aqoonsano subxaanaه watacaala xatىa natajiha ilayhi bquluubina wa ducaaئina wa salaatina si aan ula jihaysano qalbigeena iyo ducooyinkeena iyo salaadaheena si aan ila xaggiisa ula jiso waman laa yacrifu rabahu ayna huwa qofkaanan garanayn rabbigii xagee yahay qofka yabqa wuxuu ahaanayaa baaqi ahaana daa'ican mid dayacan laa yacrifu wijhata macbuudihi aanan aqoonin waxa uu caabudayo meel uu hagaago walaa yaquumu bixaqi cibaadatihi caabudida dhabta ahna yani ma istaago ilaahi subxaana watacaala ina sifat alculuwi meeshan waxaa laga gelaya sareynta ilaahi subxaana watacaala ilaahay inuu khalqigiisa ka sareeyo subxaana watacaala ina sifat alculuwi sareynta tilmaanteeda lilaahi ilaahay uu sareeyo calaa khalqihi uunkiisa uu ka sareeyo hiya ka baqiyati sifaatihi waxay la mid tahay tilmaamaha kale oo kale alwaaridati fi lqur'aani walaxaadiidi saxiixa ee ku soo arooray qur'aanka iyo axaadiista saxiixa ah kasamci walbasari sida maqalka ilaahay qur-aanka waxaa kusoo arooray yani ilaahay inuu wax maqlo subxaana watacaala inuu wax arko samiicun basiir yani samiicun basiir ilah waa samiic waana basiir laysa kamidlihi shay wahuwa samiicu lbasiir waa mid waxan maqlo waxna arka ilaahay subxaana watacaala wاlkalaami hadalka ilahay waa hadla subxaana watacaala wakalama allahu muusa takliima qur-aanku ilahay ku hadlay subxaana watacaala wاnuzuuli soo degitaanka wagayri dalika min sifaati illahi iyo kuwaas waxaan ahayn oo ilahay tilmaamihiisa kamid ah subxaana watacaala faina caqiidata salaf الsaalix caqiidada dadka salafkii tagay suubana saxaabadii taabiciintii taabicu taabiciintii ilaa ummadan wanaagsanayd caqiidadooda saasay ahayd wاlfirqaة الnaajiya iyo kooxda badbaadayso ahl الsunati wاljamaaca aliimaan inay rumeeyaan ayaa kamid ah caqiidada salafka inay rumeeyaan bima akhbara allahu bihi ilaahay waxa uu ku sheegay fii kitaabihi kitaabkiisa o rasuulihi ou rasuulkiisa uu sheegay fii axaadiiثihi axaadiistiisa min gayri ta'wiilin walaa tacdiil iyadoo aan la ta'wiilinin oo macno kale aan loo sheegin iyo iyadoon la tacdiilinin iyadoon la dhihin wax ay tusinaysa ma laha oo aan la fariisinin tacdiilka waxaa la yihahdaa baabuurka markuu halaabo baabuurka waa halaabaa la yidhaahdaa magacyadii ilaahay sifaadkii ilaahay baa la haleynaya waxaa laga dhigaa wax halaysan macnaha wax laga faa'iida ma laha wax meesha iskaga yaalo laakiin macno ay leedahay wax ilaahay ay ka gudanaysa ama wax ilaahay subxaana watacaala lagaga baranayo ma jira laleeyahay tacdiilka waa saas walaa tashbiihin iyadoo aan lagu shabihin
صفاتك إلهي صفاتك مخلوقيسة لقوله تعالى إله ليس كمثله إله كلما أهان شيء وح إلهي لمد شيء إلهي لمد مجره صفات كيسي أفعاشيسة إلهي تلماميسة عد لمد مجره أو إلهي كصهري تا حاجة مركا دكتو هذا وحا لغا ربا وهو السميع البصير هذا هو إله وح مقل أو حاركو يينا كو جينين عررد أدك عرريسو تشبيه كعرريسو إن هذا إنكرت صفاتك إلهي سبحانه وتعالى. سورة الشورى أيضا كجرتها ولما كانت هذه الصفات صفات كاس إلهي أوليه سبحانه وتعالى إلهي أوليه ومنها وحاكمة صفة علو الله إلهي إنه كسر على خلقه أونكيسة تابعة لذاته وحي رعسنتها إلهي ذاته سبحانه وتعالى فإن الإيمان بها واجب إن الرمي واجب تلمامها وحي رعسيه ذاته إلهي ذاته إلهي ذات مغشو يعني هو إلهي لفتي سوى لف أهانت إلهي سبحانه وتعالى تلمامها وحي رعسيه لف أهانت إلهي سبحانه وتعالى أي رعسيه مركز سيد إلهي لو رمينا إيغان وإن لو رمينا إلهي سبحانه وتعالى صفات كيسة كالإيمان بالذات العلية ساد الرميسي إلهي ذات ذي سسريس سبحانه وتعالى ولذلك سادرت قال إمام مالك رضي الله عنه إمام مالك وحيري لما سئل عن معنى قوله تعالى مركي لو يدي إلهي هذا الكيس يري الرحمن على العرش استوى الرحمن الله الرحمن على العرش عرش كركيسة أي استوى كوئك هذا عرش يسو كسر فقال وحيري إمام مالك الاستواء يعني سرينت معلوم ولا يقانا أي العلو سرينت إلهي سبحانه وتعالى ولا يقانا وحس يكسر يعني مركل إيرادو وفهمنا وحلا يقان استواء ولا يقانا معنيهسا والكيف مجهول كيفية مقابك إلهي أقصر خلقيسا لما يقان لما قرن كرو والإيمان إلا الرمي به سكن واجب وواجب صفة إله بالشيء علوه إله الشيء سبحانه وتعالى إله إنه عرشه كسر عرشه مخلوقات كلهم أويه مخلوقات كلا عرشه مركز لسوفيريو وحنا قلنا وحيار وبناه لقطه كحلقة في فلا يعني حلقة يرجرن قرير وبناه إنه صحراء لقطه لمن نقول عرشه مركز عرشه إله كسر سبحانه وتعالى أما سي علماء يرادين الله بائن من خلقه إلهي وكسو عينها أونكيسا كما حجر إلهي وح مخلوق كمد أهنا إلهي كما حجران وح إلهي كمد أهنا مخلوق كما حجره يعني مخلوق إلهي وكسو عينه سبحانه وتعالى فانظر فيري يا أخي المسلم وهلك مسلم كو إلى قول مالك رحمه الله هذا الكوير إمام مالك حيث جعل الإيمان بالاستواء مركو كدغ رمينتا سرينتا إلهي واجبا مد واجب معرفته إن لبرته على كل مسلم لأن إلهي تلمامي سبحانه وتعالى 60 هاسا وجرا دقيتي تينا كان داوة جرت كنتي بي وهو العلو سرينتا إلهي عرشي سوء سرين ولكن كيفيته قاب كيسا سيدا أويهي سرينتا سيدا سريا إلهي أون كيسا مجهولة لما يقال لا يعلمها ما قرنايو إلا الله إلهي معه ساسو الإمام مالك لكن ما ديكرت إلهي كما سريا عرشيسي لأن أصاب إلهي كفانايو النبي قاب إلهي كسفينا سبحانه وتعالى مركز ساسو إن كل منكر منك إنكرسن لصفة من صفات الله ثابتة في القرآن تلمان كمدة تلمامها إلهي قرآنك كسوغن قفك إنكر والحديث حديث صحيحة كسوغن ومنها وحكمت الصفات كسأل العلو المطلق سرينت إلهي سبحانه وتعالى وأنه على السماء إلهي إنه السماء كسره عز وجل يكون وحنقنا منكرا مد إنكرسا للآيات والأحاديث الدالة آياتها هي حادثة سنيسة على إثباتها إن لسوغ صفاتك إلهي سبحانه وتعالى أيو إنكرايا آياته لما كسو أرور إلهي تلماميسا وأمرأي إن للرمي وإن لسوغ أمرأي أيو قفك داقدك وضطوراي وأن هذه صفات كمال حديث هذا مع أمرها إن للرمي وأن هذه صفات كان إنيهين صفات كمال كامل لما تلمان تيذا ورفعة سرين تلمان تيذا وعلو كرين
laa yajuusu nafyuha aan banaanin in loo diida can illaahi ilaahi caza wajal. sifaadka ilahay markuu isku sifaynayo waa sifaad ilahay lagu ammaanayso, walilaahi alasmaau lxusna. ilahay wuxuu leeyahy magacyo wanaagooda uu xad dhaaf yahay, wanaag badan badan badan. marka sifo kasta iyo magac kasta wuxuu xambaarsan yahay ilahay buu sifaynaa subxaana wa tacaala. waa samiic, wax kastoo maqla alla subxaana wa tacaala. waa caliim, alla subxaana wa tacaala. waa caliy, waa sareeya, waa sareyn u leeyahy ilahi subxana wa tacaala. wax kasta uu ka sareeyo, sareyn oo macnawi ah iyo sareyn daati ah, intaba waa leeyahy ilahi subxana wa tacaala. marka sifaadkii dhammaa oo ilaahay sifaynayay ayaad u diideysaa, marka meesha ka saareysa. marka axaadiistaas oo dhan banaanku u tuuraya. laa yajuusu nafyuha can illaahi wa ana muxaawalatu bacdi almutaakhiriin, qolooyinkan gadaalka soo gaarka ah isku dayga qaarkood ay isku dayeen ta'wiil alaayaati wasifaat, aayadihii in la ta'wiiliyo oo macno kale loo sheego, oo wax ayaga caqligooda la socdo in loo ta'wiiliyo. mutaathiriina ayagoo ku ta'athursan bilfalsafati alatii afsadat caqaa'ida kathiir min almuslimiin, falsafooyinkii fasahaadiyey caqiidooyinka badan, caqiidada muslimiinta in badan ka fasahaadiyey. jacalahum wuxuu ka dhigay yucadiluuna hadihi sifaati alkamaaliyati lilahi caza wajal, inay tactiiliyaan, yani inay tactiiliyaan oy dhahaan wax ay tusayso ma laha, maba not functioning waay, not functioning. sifadan wax ay tarayso oo faa'iideynaysa ma jirto. waxa samiic ku jira ilaahay basiir, caliy, wahuwa alcaliy alcadiim, yani wahuwa algafuur alraxiim. waxa magac ilaahay lagu sifayna iyo waxa sifo ilaahay la siina oo dhan waxay leeyihiin kullaha cibaara can idaat. ilaahay unbay sheegaysaa, wax kale oo laga faa'iida iyo wax macnahoo ku xabaarsan tahay iyo wax tilmaano xabaarsan midna ma jirtay leeyihin. hadi ma waxay leeyihiin. marka saasay halkaasay ka dhaceen. marka wakhaalafu dariiqata salaf, waxayna khilaafeen jidkii salafka. wahiya aslam wa aclam, iyadaa nabadgelyo badan, iyadaa cilmi badan. wa axkam, iyadaana adag oo sugan, iyadaa sugan oo adag. yani waxay dhaheen qoladan khalafka gadaal ka timid waxay dhaheen dariiqu salafi aslam, dariiqii hore xoogaa nabadgelyo badan, dadka way nabadgelisaa. yani iyadaa iska xoogaa nabadgelinta wax kale uma qarin, waxay u qarinayaan jahliya u qarinayaan. waxay leeyihin dadkii hore wax ma kala ogeyn oo wax badan oo ka dambeeyaa jirayo, waxyaala badan aan gadaal laga ogaadayo, saasoo kale saasay leeyihiin. salafka waxay leeyihiin aslam ah, walkhalafu aclam, dadka dambaa cilmi badan, saasay yirahda. marka waa hadalka sheekh uu leeyahay, wuxuu leeyahay wa dariiqu salafi wakhalafu dariiqata salaf wahiya aslam wa aclam, iyadaa aslam ah oo nabadgelyo badan, iyadaana cilmi badan. wa axkam, iyadaana axkam ah. axkam waxaa leedahay yani waa iyadaa aan dulal iyo waxba lahayn. marka wama axsana man qaala, ninkii yiri maxaa ka hadal wanaagsan. yani cilmiga diin marka la yihahdo waxyigan waxa uu xambaarsan yahay, saxaabadii iyo dadkii tagay wax kaga aqoon badan ma laha. nin dhowr boqol oo sano kadib gadaal ka yimid aa qur-aanka ka fahmi og, yani ibn cabaas iyo saxaabadii abu hureyra iyo cumar bin khataab iyo dadkii afkooda uu kusoo degay oo dushooda uu kusoo degay oo practice gareeyey, ninkaasaa ka fahmi oo ka cilmi badan. yani macquul ma aha. faham diin iyo cilmi haddii la yiraahdo iyagaa saxiixa, iyagaa fahmo badan, iyagaa cilmi badan, iyagaa yani dariiqooda axkam ah. iyaga marka waa in la raaca. ma dhici karto inaad adiga ka fahmi badan tahay, ka fahmi og tahay saxaabadii. waa ka hadal badnaan kartaa, yani waxaa arkaysa kutub dhan oo fara badan oo caaw dhan haddaad akrinayso waxaad ka faa'idaysa wana xore lama ku jiraan. laba kelmad oo saxaabiga yirahdaa ka baraka badan, oo ka cilmi badan, oo ka nuxur badan maaragtay markaad fiiriso. marka waa hadal badan yihiin qoladan dambe, waana maaragtay wareer badan yihiin, laakiin waxay ogyihiin ma laha. wama axsana man qaala, yaa ka hadal wanaagsan qofkii yiri wakulu khayrin fi itibaaci man salaf, khayr oo dhan wuxuu ku jiraa in la raaca dadkii tegay. wakulu sharin fi ibtidaaci man khalaf, shar oo dhanna waxay ku jirtaa bidcada ay dadkii dambe la yimaadeen. khulaasada alkhulaasa
إن الإيمان بجميع الصفات الواردة في القرآن إن الرميو تلمامها إلهي وكل كسر القرآن والأحاديث الصحيحة واجب هي أحاديث الصحيحة وواجب ولا يجوز ما بنانا أن نفرق بين الصفات إن كلا سوعنو صفاتك فنؤمن أن رمينا بعضها قاركيد على ظاهرها سيدا ظاهر كذا نرمينه أنه تأويل أنه تحريف أنه تشبيه ونتأول بعضها قارن أن تأويلنا الآخر قارك كلا فالذي يؤمن كالرميسان بأن الله إلهي سميع بصير إنه يهمد وحمقل وحنا أركا لا يشبهه أحد قفنا وحنا أوسن وأكينوا شبهين في سمعه وبصره مقل كيسي أرقيسي وحبو مقلا وحنا وأركا مقل كيسي أرقيسانا وحو شبهها ملا أساقو وقاريا عليه وحواجب كوا أن يؤمن إنه الرمي بأن الله في السماء إلهي إنه سمد كسريو إلهي إنه سمد يهي وعرشه كسريو إنه الرمي واجبك على السماء علوا سمد وكسر مري الله سبحانه وتعالى سرين يليق بجلاله لا يشبهه في علوه عد سرين تيس وقعي هنا مجرته halkaas waa inaad marisaa liannaha kulahaa sifaatu kamaal ilaah kulligood waa tilmaamo ilaahay kaamilnimadiisa sheegayo ilahay wax waa maqla wax maqla dad tira waa naqsi waxbuu arkaa ilahay wax ma arka dad tira waa naqsi laakiin hadda ilaah aniga wax waa maqlaa waxna waa arkaa marka maxaa ilaahdaa waxaa ku leeyahay maya maqalka ilaahay iyo aragga ilaahay isagay u gaar tahay kaada la mid ma aha kaada way ka duwan yihiin طيب سرينت إلهي سبحانه وتعالى إذا اسكو باب مرسي وحتى لا سرينت إلهي سبحانه وتعالى وهو عرشي كسريا سرين إساقا وقلنتا هذا ما لأن صفاتك مكر واسكو مد كل قدو إذن مركا قاري الرميين مثل أشعرية ذوكل قاروي الرميين له صفات سبعة تنتظم صفاتك قاروي الرميين قارنوي ديدين وحاليا قار كان وكسفينين قار كان محاو ديدين وحكينا يعني إنه إلهي يكون شبهمه خلق جيسا وكوان مكيني كران مياه وكوان سو مكيني مقل يسمع مكيني كران مياه مياه سمع سوا سمع وقارع إساقا مقل كيسوا مقل سوا وقارع وكدوان كان مخلوقا وكوان كلمات هذان وسرين أساقا وقارع وعراء أساقا وقارع وقصر أساقا وقارع ما صار هذان وهلكا وضع مرسيسان كل صفاتك إلهي يولا دا كوان با هلكا مرسيسان marka saasaa la rabaa inuu qofku u rumeeyo ahbataha allahu linafsihi fi kitaabi ilaahay baa isu sugay kitaabkiisa ilaahayna asaga isu aqoonis badan cidka aqoonis badan ilaahay ma jirto rasuulka ku xigo ilaahay ugu aqoonis badan isagana waa ku sifeeyey wa kalaamu rasuuli sal ly slam tuayiduha waxaa xoojinaya kalaamka rasuulka waxaa xoojinaya alfitratu saliima fitrada abuuritaanka fiyow ayaa xoojinaya wayusadiquhaa waxaa rumaynaya alcaqlu saliim caqliga fiyow ayaa rumaynaya saas in loo sifaadka loo suga ilaahay subxaana watacaala laguna sifeeyo ayadoon la ta'wiilinin ayagoon la tashbiihinin iyo iyadoon la tacdiilinin in saa loo rumeeyo yani ayaa caqliguna keenaa fidrada uurkan ay keenaysaa qaala nucaym ibnu xamaad dad badan waxaa laga yaabaa waxa badan ina akhriso kutubta jawhar tawxiidka badcul amaalka sunuusiga waxaas sharaxa ka buuxo oo falsafo ah ciidaa ka badan qofka marka lagu dhuro waxa laga yaabaa inuu ku wareero oo qaado waayo nusuusta saxiixa ah si sax u qaado oo u raadiyo ta'wiil raadiyo la ordo maanta ma xadiiskan waa in la ta'wiiliyo siisa loo sheegi karo tan waa in la ta'wiiliyo kan waa in xagga laga ridaa marka ta'wiil jabkiisa uu kala yimaado قال النعيم بن حماد شيخ البخاري نعيم بن حماد رحمه الله وحوير وشيخي إمام بخاري شيوخ سكمدة وحوير من شبه الله بخلقه كفر قفك كشبه إلهي أون كيسا أو أبوري قفك إلهي اسكشبه وقالوا بي ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر قفك إنكره وح إلهي أساق اسكسفيه وح إلهي أساق اسكسفيه ama nabiga uu ku sifeeyey qofkii diidana oo yiraahdo maya ma jirto ilaahay kuma sifeysan sidaan faqad kafar waa gaaloobay isagana walaysa fi ma wasafa Allah bihi nafsuhu ma aha ilaahay waxa asaga nafsadiisa uu isku sifeeyey wala rasuulkiisa waxa uu ilaahay ku sifeeyey
tashbiih ma aha, shabahaad ma aha. haddii ilaahay waa samiic, ilaahay waa basiir, ilaahay yaduu leeyahay, fara haddii la sheegay maaragtay ma aha tashbiih. tashbiih ma aha, waa ilaahay subxana wa taala isagay u gaar tahay, isaga sifaadkaasoo dhan isagay u gaar yihiin. saasuu leeyahay dakarahu fi sharxi taxaawiil. allahu fowqa alcarshi, ilahay carshiguu ka sareeya subxaana wa tacaala. alqur'aan alkariim, qur-aanka kariimka ah, walaxaadiid asaxiixa walcaqlu saliim. qur-aanka kariimka ah, axaadiista saxiixa ah iyo caqliga fiyo, walfitra saliima, abuuritaanka fiyo, tu-ayidu dalika, arrinkaas ayay xoojinaysaa. qaala allahu tacaala, ilah wuxuu yiri alraxmaanu, allah raxmaanka, cala alcarshi, carshiga dushiisu istawaa ka sara maray, ay calaa wartafac. istawaa macneedu calaa waa ka sara maray, wartafac. Akan gabbaraman Allah malenjiru, khawaan uume hunda fireesanii hiru, hojintiya yaamuu ilmanamaa hundaa, gabbartii biraarraa fara rabbii guddaa, jiruun addunyaatun barta sobaatii, تخيست وارا تن آخراتي، والري ولكبة دوا خيسا قلا، خسيف مجر كنتي BN، والري ولكبة دوا خيسا قلا، خسيف مجر كنتي BN. كما جاء في البخاري عن بعض التابعين، تابعين قاركود سي لوغوري، تابعين قاركود ساسي كفسرين. وقال تعالى إله وحو يرى آمنتم مكا آمن الرحمن على العرش سوى ميلا بدنا كسار إلى أفر ميلا قرآن كسارتي دينا إلهي بقرنا انت صح حسوستا إلى أفر ميلا كسارتي. وقال تعالى إله وحو يرى سبحانه وتعالى آمنتم مكا آمنتهين من أحد في السماء سمضى هذه إلهي على السماء سمضى دشيدا هذه أن يخسف إنه إذن لقويه لولك بكم هذيك الأرض لولك إذن لقويه مياد كآمنتهين إلهي سمضى وصريه وآية قرآن. قال ابن عباس وحوله هو الله وإلهي كما في تفسير ابن جوزي وإله أحد كالله في السماء. وقال تعالى له وحر يخافون ويعبسون يعني خلقه ربهم ربهم من فوقهم كسرية كركوضة هذه من فوقهم هذا بك عبسون يعني إله وهي هلاقي وأتنأتراب إله وأنه هلاقي أركب محل ضموني أركب هذه وفترة هذه أوجي سنيسو. وقال تعالى له وحي سبحانه عن عيسى النبي عيسى وحو كور رماي إله وحي بل رفعه الله إلهي باكر قاضي إلهي حقيسة إلهي حقيسة الله قاضي وحق السماء السرع بل رفعه الله إلهي باكر قاضي وكريال إلهي حقيسة وكريال رفعه الله إلى السماء حق السماء وإلهي هذا أي الله كريالي. وقال تعالى له وحيري وهو الله وألا في السماوات المعبود في السماوات مثل لو عابد السماء أما وهو الله وألا في السماوات على السماوات سمدها كركودا أيها هذا الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير وحيري في تفسير هذه الآية اتفق المفسرون مفسرين توحي اسكو وافقين على أننا لا نقول إننا لهن كما تقول الجهمية جهمية سيلة هي أوكله فرقة ضالة وقول سن إن الله في كل مكان إلهي مالك استوجوها يعني جهمية سيلة أوكله لهن مدهي نبي وفرقة لا تعالى الله إلهي باسري عما يقول وحى إليه جهمية علوا سري كبيرا أوين. ومعنى في السماوات المحلوجة على السماوات سمدها دشود أي إلهي أحدي. وما قوله تعالى إلهي هذا الكويري وهو معكم الله وإذن لجر أينما كنتم ملكستو أجوكتانبا فمعناه وحيا معنيهيسا أن الله معنا إلهي ومعنا سبحانه وتعالى بعلمه علميسا أي إلهي معنا كيهي يسمعنا وانا مغلايا ويرانا وانا أركايا أين كنا ملكستو أنجوكنا وحيث كنا ملكستو أنجوكنا.
wamaa qabla alaayaati wa bacdaha yubayinu dalika. ayadda waxa ka horeeyo iyo waxa ka dambeeyo ayaana arinkaa cadaynayo. ayadda waxa ka horeeya alam tara an allaha yaclamu ma fi samaawaati wama fi lard. ilaahay miyaan ogeyn inuu ogyahay ilaahay samadaha iyo arlada waxa ku jiro. aakhirka dambena waxaa lagu dhameeyey yani ma yakunu min najwa thalaathati ila huwa raabicuhum walaa khamsati ila huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika ولا أكثر ولا أكبر إلا هو مع ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئكم ما كنتم تعملون. يعني وهو معكم أينما كنتم أيداس علمي لغو بالله يعني ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. شيء كasta ilahi waa ogyahay subxaana watacaala. marka cilmiga lagu bilaabo cilmiga lagu dhameey. marka waxaa laga hadla waa cilmiga ayaa laga hadlaya. ayadan suurat alxadiid ku jirta idan waa saas oo kale wahuwa macakum aynamaa kuntum famacnaahu ana allaha macana bicilmihi. ma aha ilahay in nagu jiro anaga dhexdeena, ma aha nagu dhex jira alla subxaana watacaala, ma aha waxaa laga yaaba inuu yidhaha qofka maxaa loo ta'wiilinaya oo maasiyada loo dhaafo, maxaad kan loo ta'wiilinaya. ta'wiil ma aha kan, yani qur-aanka waa muxkam iyo mutashaabih. mutashaabiha midka mutashaabiha oo macaani badan ka suurtoodo waxaa loo celinaya muxkamka loo celinaya. yani aayadaha sariixa iyo axaadiista faraha badan ee sariixa ee ilahay inuu carshigiisa ka sareeyo cadaynaysa kaasaa loo celinaya. waa muxkam cad waayo. وعرج صلى الله عليه وسلم waxaa la korsiyey nabiga ila samaa'i samada ayaa la korsiyey asaabicati todobaad xataa kalamahu rabuh ilaa rabbiga uu la hadlay. nabiga waa la kor yeelay habeenkii leylatu micraajka koraa loo qaaday ilahay xaggiisa loo qaaday subxaana watacaala. wafurida caleyhi 5 salawaatin 5 salaadood ayaa lagu farad yeelay. waqaala sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu yihi alaa ta'manuunii soo i aamini maysaan wa ana aamiinu man fi samaa. ilaahayga samada ka sareeyo anigoo ah midkuu aaminay. huwa allah waa ilaahay subxana watacaala. wamacnaa fi samaai cala samaa. ilaahayga samada ka sareeyo hadduu i aaminay adinka ma i aaminaysaan miya soo i aamini maysaan. waqaala sal sl nabigu wuxuu yihi irxamuu man fi lardi. dhulka waxa jooga u naxariista yarxamkum man fi samaa. ilaahayga samada ka sareeyo ayaa idin naxariisanaya. sa'ala rasuul sal slam jaariyatan gabar buu rasuulka weydiiyey faqaala laha wuxuu ku yihi ayna allah. ilaahay xaggee yahay. adoonu damcay inuu xureeyo nin saxaabada ka mid ah gabadh inuu xureeyo damcay marka wuxuu hubinaya inay mu'mino tahay in kale nabigu u keenay. nabigu wuxuu ku yihi ayna allah. ilaahay xaggee yahay. faqaalat fi samaa. waxay tihi samadu ilaahay yahay waa naga sareeya allah subxaana watacaala fi samaa. qaala wuxuu yihi man ana aniga kumaan ahay. qaalad waxay tihi anta rasuulullah waxaa tahay rasuulka ilaahay. qaala nabigu wuxuu yihi marka ictiqhaa xurey fa inaha mu'mina. waa mu'minad ilaahay rumaysan subxana watacaala. rawahu muslim xadiiska ma muslima wariyey. fa inaha mu'mina nabiga uga markhaati kaca ilaahay samadiisu ka sareeya markay tiri wuxuu noqotay mid ilaahay taqaan subxaana watacaala. ilaahay samadu ka sareeya carshigiisu ka sareeya alla subxana watacaala. marka axaadiista dhan saasay ku socotaa. insha allahu tacala waa dhamaystiri doonaa haddii ilaah yiraahdo. darsigeena intaasaan ku joojinaynaa. wallahu subxaana watacaala aclam. أستغفر الله أستغفر الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أحمد. أستغفر الله.